marka waxa weeyaan haddii Hillary Clinton ay guuleysato hanaanka qaxootiga ama soo galootiga iyadu ma sidan bay ku sii wadaysaa mise wax kale oo ka bedelan oo ay wadayada iyadu waxay runtii ku baaqday tira hadda 10,000 oo qof ah ayuu Obama mesela ogolaaday in laga soo qaado dalka Syria qaxootiyada caadiga ah qaxootiyahan Mareykanku ku aqbali jiray waxay ahaayeen ilaa 75,000 sanadkii iyadu waxay qabtaa in la kordhiyo tiradaas waxay qabtaa in la fududeeyo oo dadka humanitarianka ama bini'aadanimada ugu tabaalaysan xiriyaha qaxootiga in sidii hore loo soo qaadi jiray si lamida loo soo qaado waxa kale oo ay qabtaa dadka hadda jooga ee sharci la'aan dalkan ku jooga ee dhuumasho ku iyaga laftooda in loo ogolaado inay soo baxaan cashuur ay bixiyaan la eego qofkan inuu dambi galayeen kale hadii cashuurtiina uu bixiyay wax dambi uu galayna aanay jirin citizenship ama loo ogolaado qaab uu sharci ku helo marka Hillary iyadu waxay qabtaa fahanaan aad u furfuran oo soo dhaweynaya dadka soo galeetiga ah ma ku guuleysan kartaa kaligeed inay hawsha fuliso waxa iska adag in la saadaaliyo waayo Congress-ka hadda waxa u talinaya oo ka talinaya Republican-ka ka talinaya marka jamhuurigaas way ka soo horjeedaan runtii odorsiyadeeda ama hanaankeeda marka Hillary Clinton waxa la oran karaa waa hanaan furfuran oo aad uga duwan midka Donald Trump marka qareen ahaan lawyer Cabdiwaaxid xaalan taatay marka labada qorshe ay wadaan labadaasi musharaxaad fiiriso كيف كل وناكسن؟ رون أهانتي أنا واحد من كرا مريكان كوادل سوغليتي وي قف إسكالي هم ترى مريكان كا دتك وجود ولا يسألون كرا دول كوال ويمي ودتك إنديان كوا يقام مركا وحي كبش سهر كذا فكر كان دونالد ترامب وكوبا قيو أولي هاي دل كان دل جارا إسكالي ودل كي يجي من دبو حريصاننا وفكر عن مريكان أهيوي مريكان نمو سوغليتي نمو dalkan Mareykankuna waa fikrad ma aha dal cunsuri ama aha oo cunsur gaari iska leeyahay mesela waxa la oran karaa Englishman baa jira Frenchman baa jira laakiin American person ma jira waxa jira fikir American jira marka anigu fikir ahaan waxaan qabaa oo aad ugu qanacsanahay hanaanka Hillary Clinton ay wadato iyo xisbiga dimuqraadiga ah ayaa aad iyo aad ugu fiican dalkan Mareykanka sababtoo ah dalka Mareykanku maanta tartan buu ku jiraa wuxuu kula jiraa China iyo Japan iyo Mexico iyo dalal fara badan oo adduunyada abu xagga dhaqaalaha kula jira dalalkaasi waxay qabaan iyo India runtii dalal aad u daayiri oo badan bay ay leeyihiin oo dad daayir ah ayaa dalkaasi leeyahay Mareykanku marka wuxuu u baahan yahay dhiig cusub oo mar walba ku soo kordha oo aad iyo aad firfircoonaan keena sidaad ogtahay kombaniyada ugu waaweyn Mareykanka sida Google uu kamid yahay dadka sameeyay waa dad soo galeeti ah Mareykanka dadka hadda teknolojiyada iyo wax soo saara ee aad iyo aad fikirka u keenay waa dad soo galeeti marka waxaan qabaa fikirka Donald Trump waa fikir aad iyo aad u guracan waa fikir aan waafaqsanayn fikradda Mareykanimada waa fikir aan waafaqsanayn hanaanka Mareykanku ku soo dhaqmay sida awgeed Hillary Clinton hadii ay guuleysato waxaan qabaa guul weyn bay u tahay dadka soo galeetiga ah dadka Soomaalida oo aad uga warwarsan waxay ku dambeyn doonto hanaankan qaxootiga ama dadka soo galootiga maxaad ku leedahay waxaan leeyahay yaan laga hordhicin yaan la walwalin si dhaqso ah isbedel nooca uu u ekaanayo lama garan karo marka qof walba qofkii kiis u fura oo qaxooti mesela process uu socday ama qofkii qof u dacwooday qoyskiisa ah ama uu socday wax walwalo gaar ah oo qofkaasi muujinaya anigu ama inuu muujiyo ay tahay ma qabo waxaan qabaa in la ogaado looyara jira shaqadeedu waxa weeye anaga looyara ahaan inaanu sharciga iyo xeerka difaacno marka dadkaasi ha isdajiyeen fikirkan TV-yada ka socda iyo hanjabaadana waa ololo siyaasadeed oo hadhow Donald Trump hatta haduu guuleysto marka uu kursiga ku fariisto arintu sidoo u fududeynaya hadda ma ugu fududaanayso oo waxa ku xiran oo ku xayndaaban sharci iyo maxkamado marka hal isdajiyo Mareykanku waa dimuqraadi qof kaliya awood ma laha marka waxaan qabaa dadkaasi qaxootiyadaas iyo dadka kiisasku u socdaan qof walba qofkii su'aal gaar ah qabaay looyarada la soo xiriiro laakiin absidan faraha badan leh hal iska dhaafan qabaanigu aad baad ma santahay Cabdiwaaxid adiga mudan waxaan adiga marka waxa weeyaan hadii Hillary Clinton ay guuleysato hanaanka qaxootiga ama soo galootiga iyadu ma sidan bay ku sii wadaysaa mise wax kale oo ka bedelan oo
ayay wadaayaduna iyadu waxay runtii ku baaqday tira hadda 10,000 oo qof ah ayuu Obama mesela ogolaaday in laga soo qaado dalka Syria qaxootiyada caadiga ah qaxootiyahan Mareykanku ku aqbali jiray waxay ahaayeen ilaa 75,000 sanadkii iyadu waxay qabtaa in la kordhiyo tiradaas waxay qabtaa in la fududeeyo oo dadka humanitarianka ama bini'aadanimada ugu tabaalaysan xiriyaha qaxootiga in sidii hore loo soo qaadi jiray si lamida loo soo qaado waxa kale oo ay qabtaa dadka hadda jooga ee sharci la'aan dalkan ku jooga ee dhuumasho ku jooga inta tahay labada qorshe ay wadaan labadaasi musharaxaad fiiriso kaba kula wanaagsan run ahaantii anigu waxaan oran karaa Mareykanku waa dal soo galeyti weeye qof iska lihi ma jira Mareykanka dadka ugu dhow la is oran karo dhulkan waa loogu yimi waa dadka Indianka loo yaqaan marka waxay ka soo horjeedaa fikirkan Donald Trump uu ku baaqayo ee uu leeyahay dalkani dad gaar ah iska leh oo dalkaygii baan dib u xoreysanayna waa fikir aan Mareykan ahayn weeye Mareykannimadu waa soo galeytinimo dalkan Mareykankuna waa fikrad ma aha dal cunsuri ama aha oo cunsur gaari iska leeyahay mesela waxa la oran karaa Englishman baa jira Frenchman baa jira laakiin Google uu kamid yahay dadka sameeyay waa dad soo galeyti ah Mareykanka dadka hadda teknolojiyada iyo wax soo saara ee aad iyo aad fikirka u keenay waa dad soo galeyti marka waxaan qabaa fikirka Donald Trump waa fikir aad iyo aad u guracan waa fikir aan waafaqsanayn fikradda Mareykannimada waa fikir aan waafaqsanayn hanaanka Mareykanku ku soo dhaqmay sida awgeed Hillary Clinton hadii ay guuleysato waxaan qabaa guul weyn bay u tahay dadka soo galeytiga ah dadka Soomaalida aad uga walwalsan waxay ku dambeyn doonto hanaankan qaxootiga ama dadka soo galootiga maxaad ku leedahay waxaan leeyahay yaan laga hordhicin yaan la walwalin si dhaqso ah isbedel nooca uu u eg American person ma jira waxa jira fikir Americana jira marka anigu fikir ahaan waxaan qabaa oo aad ugu qanacsanahay hanaanka Hillary Clinton ay wadato iyo xisbiga dimuqraadiga ah ayaa aad iyo aad ugu fiican dalkan Mareykanka sababtoo ah dalka Mareykanku maanta tartan buu ku jiraa wuxuu kula jiraa China iyo Japan iyo Mexico iyo dalal fara badan oo adduunyada buu xagga dhaqaalaha kula jira dalalkaasi waxay qabaan iyo India runtii dalal aad u da'yari oo badan bay ay leeyihiin oo dad da'yar ah ayaa dalkaas leeyahay Mareykanku marka wuxuu u baahan yahay dhiig cusub oo mar walba ku soo kordha oo aad iyo aad firfircoonaan keena sidaad ogtahay kombaniyada ugu waaweyn Mareykanka sida iyaga laftooda in loo ogolaado inay soo baxaan cashuur ay bixiyaan la eego qofkan inuu dambi galayeen kale hadii cashuurtiina uu bixiyay wax dambi uu galayna aanay jirin citizenship ama loo ogolaado qaab uu sharci ku helo marka Hillary iyadu waxay qabtaa fahanaan aad u furfuran oo soo dhaweynaya dadka soo galeytiga ah ma ku guuleysan kartaa kaligeed inay hawsha fuliso waxa iska adag in la saadaaliyo waayo Congress-ka hadda waxa u talinaya oo ka talinaya Republican-ka ka talinaya marka jamhuurigaasina way ka soo horjeedaan runtii odorsiyadeeda ama hanaankeeda marka Hillary Clinton waxa la oran karaa waa hanaan furfuran oo aad uga duwan midka Donald Trump marka qareen ahaan lawyer Cabdulwahab